بسم الله الرحمن الرحيم حلقدان وحلقدي أفراد دروستين كساب سنة أعماش حجكنا اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu soo haynay casharadeenii iyo duruusteena ku saabsanayd acmaasha xajka waxa iga xusuusina xaajigu markuu rabo xaj inuu guto saddex hab aynu tilmaanay oo qofku uu xajka u gudan karo nooc la yiraahdo ifraad iyo nooc la yiraahdo qiraan iyo nooc la yiraahdo tamattu saddexda nooc marka inagu waxa aynu si fiican u falanqayn doonaa oo halka kan uga hadli doonaa nooca la yiraahdo qiraanka waxaynu soo gaarnay qofkii oo magaalada Madiinaad yimid fadliga Ilaahay iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala manadiisa waxa kamida in sanadkan 2025 oo ku asaysan hijriga 1446 xujayda Soomaaliya ka baxaysa oo dhan 12500 oo xaaji inay dhamaantood ka wada degayaan magaalada Madiina waxa iga ogaala oo xusuusin oo aan u direeyaa xujayda in qofku markii uu Muqdisho ka tagayo uu saniyada gashan inuu xaaji yahay oo xajkii uu xarmanayo laakiin inuu niyadiisa gariyo inuu u socdo ziyaarada masjidka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sida waxaan u leeyahay hadduu qofku niyada gashado in uu xaaji yahay ama mu'tamir yahay waxa laga rabaa dil xulayfa markuu marayo inuu qofkaasi ku dhawaaqo ihraamkii waana soo dhaafay uma suurta galayso marka maadaama Madiina uu ku wajahan yahay waxa xaajiga u fiican Muqdisho ka baxaya inuu niyada gashado maadaama Madiina toos ugu wajahan yahay ziyaarada masjidka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam taasa marka iga xusuusina haddii uu Madiina tagana waxaynu tilmaanay acmaashii looga baahnaa hadduu magaalada Madiina tago in uu sameeyo darsiga hore baynu ku soo aragnay waxa iga xusuusin kaleeta ah magaalada Madiina wax acmaasha xajka ah ama acmaasha umrada ah oo ina ka yaala ma jirto aan ka ahayn inaynu soo ziyaarano masjidka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam laakiin acmaasha oo dhan waxayna ka yaalaan magaalada Makka haday umro tahay iyo haday xaj tahay taasina waa iga xusuusin qofku magaalada Madiina buu ka soo baxay markuu masaafada soo dhaafo masaafo ku siman ilaa iyo 50 kilomitir magaalada Makka iyo magaalada Madiina iyo magaalada Makana waxay isu jiraan 450 kilomitir miiqaadkan dil xulayfa oo dadka Madiina ka soo xarmanaya ay ka xarmanayaan waxa uu Makka u jiraa 430 kilomitir marka waa wax 30 kilomitir meelahaas dhan markaad magaalada Madiina xaggeeda ka soo baxdo Madiinu qofkii ka soo baxay waxaynu taaganahay bogcadda ama meesha la yiraahdo dil xulayfa halka marka waxa ka bilaabanaya xaajigii mu'tamir xaajigii mutamatti ahaa xajkiisii iyo acmaashiisii mutamatticu waa in uu qofkaasi samaynayo xaj iyo umro haddii marka miiqaadkii uu gaaro waxa loo sunneeyaa xaajiga koow inuu isnadiifiyo labo waxa loo sunneeyaa inuu qubaysto saddex waxa loo sunneeyaa inuu isudgiyo markii uu qubaysto dil xulayfa ama ragga ha noqoto ama dumarka ha noqoto waxay leeyihiin xamaamiyo raggana u gaara dumarkana u gaara masjid weyn waa ku yaala marka waxay gelayaan xamaamiyadii waa isnadiifinayaan waa qubaysanayaan
waa isudginayaan uduga iyo cadarka iyo barafuunka markii aad masanayso waxa weeye jirkaaga oo kaliya laakiin dharka ihraamka ma marinayso adigoo diyaarsan oo haddana qubaysay oo weese qaba baad waxaad imaanaysaa masjidkii dil xulayfa 2 ragcadood baad markaa ku tukanaysaa oo ihraam ah halka markii aad labisato dharkaagii dharka raggu ay labisanayaan waxa weeye dhar go hoos laga xiranayo iyo go kor laga huwanayo waa labada qaydo cadcad aad aragteen afdal waxa ah dharka qofka xaajiga ay marka uu xarmanayo uu labisanayo inay dhar cadcad noqdaan qofka dumarka ah laakiin miya ayadu waxay labisanaysaa dharka wixii ay doonto kaliya waxay iska ilaalinaysaa dharkaasi inuu dhar qaawan yahay oo ziinadeeda iyo quruxdeeda muujinaya waxay iska ilaalinaysaa dharkaasi inuu eeg yahay dharkii ragga oo kaleeto oo raggii ay shabahdo waxay iska ilaalinaysaa dharkii libaasul kaafiraat gabdhaha gaalada ay dharka ay labisan jireen halka markii uu qofku dhameeyo in uu isnadiifiyay qubaystay iscadriyay oo kursiga baska wagaariga wada uu ku fariisto ninkaasi wuxuu niyoonayaa ama ragaado ama dumar ha aade al-ihraamu bil umrah wuxuu qofkaasi oranaya oo aan kugu dhawaaqay umro haddii qofku isagu uu iska umraynayo iska xajinayo weey laakiin haddii mar hore intuu qofkaasi xaj guday ama xaj uu sameeyay oo rabo qof kaleeto inuu ka umreeyo ama qof kaleeto inuu ka xajiyo wuxuu oranayaa labbayk allahumma umratan an fulanin hebel ayaa uu ku darayaa magaciisina sheegaya halkaas gaariga marka uu kursigiisa ku fariisto oo ihraamkii oo qofkaasi uu xarmado oo uu xirto bimaana umro halka waxa uga bilaabanaysa koow talbiyadi waa inuu ilaa maka intuu ka gaarayo labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك تلبية داس بوقفك أخرينيا وإلهي سبحانه وتعالى وقل دوانيا رقو كربي عدك وقاضيا وتلبية دا كر إلا وقاضا في عن لكن دمركو وعور عدك ديو هوسبي وقاضيا تلبية دا نوالا بدينيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة إمام الترمذي في سننه وكوري من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نبي محمد وحيري أفضل الحج العج والثج حجك وحاوق فضل بدن كيسة تلبية كر قاضي كيسة ديك بدن لقورعي وإلهي لو قد وادي العج لغة عربية وحا لغو يرادا رفع الصوت بالتلبية تلبية دا مركا آد قاديسو لبيك اللهم لبيكنا عدك كرو قاد الثج إساقنا وحا ليرادا كثرة هراقة الدم ديك بدن أو لقبه وبيتك إلهي مكا مركي قفك وطقه قورع بدن وصميع حاجك مركا كاسا وفضل بدن إنو قفك تلبية دا كرو قاده inuu qofku hadiye ama hadii uu wada xoolo ama xoolaba maka intuu ka gato qofkaasi uu ilaahay ugu dhawaado halka marka qofku uu godagalo umradiisi dhowr arimoodba waa loo baahan yahay oo laga maarmaana koow qofka waxa laga rabaa dikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu badiyo labo waxa laga rabaa bilaad iyo dhul xaram buu galay oo amalka la sameeyo mudaacaf uu yahay oo la laalaabayo وإنه قفك كفى إذا استوى وقت جيسا أنت حرمك ودح جوجه صدح وحكى لا أيدنا مهمد مدن تلبية سيدا أودي الحليفة وقبل أبو
إلا مكة وكجلو أو بيتك إلهي ودحجلو تلبية ذا ووضيا